وحوي موسى بيحي wax kasta waa ku dayn labada sanadood dalkeena muran ilaa muran ma ahaane dibadda ayaa wadanka xukunkiisi dibadda waa ka fadhiid buu ka noqday gudihii way ogtino wasaarad qoro shaqaysa ma jirto wasaaradda ay lacagta ay soo ururi oo maanta cashuurta halka marinayso ay inaga wareegeen baacmishariga oo dhami oo ay u wareegeen Djibouti iyo Boosaaso cashuur taa moojaane wax kale maanta wasaarad shaqaynaysa dalkeena fakshan garanaysa ma jirto waa ogtino dynamics ba ka socda geeska Afrika yaa ka socda isbedela ka socda isxulufa ka socda qaaradda lagu tartamaya adduunka maanta waa xeebteena waa reersiga way maanta yaa reersigeeni ka bax yaa ka taliya waxa ka taliya farmaajo Djibouti oo ogtii inta xeebta ka gasho maanta xeebteena waxa ka taliya in yar oo farmaajo ilmaadiri ayaa ka wakiila oo galay shararka reersiga loo sameeyay taas موسى بيحي ما وحجوده وبابي وهذا الدلكي وخيامه كسمي تليفون بالا يسهو دري طبعا كبيش الديارات بسكفولة سديت بقولوا $1,000,000 oo la yiri Soomaaliya waxa la siinayaa marka laga dhaafo deynta ayaa la yiri boqolkiiba 30 baa yeelanaysa laakiin bishuruud la yiri farmaajo la kulma oo Djibouti kula kulma مسجك واحد سيدي نيكي أنت سيدي إنتراش كم تكاسيدي وين ودينا أنا أكون رجل ذفري أنا عن توس قال من الدولة ده أنا هشي سين سيدي بقول من يبغى الله شيء هذا يدي شيء يعني واقع قال يسي شنيا أفرتن مرير أيود دلكي سومان لا تكون حراش شنيا أفرتن مرير قول شو هذا شوقين محاسبة مركز مدحوينها رئيس وزراء إثيوبيا فرحدي وحيو تجي ودك إلى إماراتك وحيو سومان نادي سومان وهشيسي وحي كعد سدين إنه الفرمات بحيو أوكليا مقارن ساي رالي قليل كبعدنا الله راه هرجيس لقينا الله راه ساسي وتشيكل كتني ويبسنح سومان نادي مكان دبالدك هذا أي حمر هاشي مقام ساي ماشي قربهاريو كونفوردن الله راه نمك soo socda way rag dadka mucaaradka ahaa ee ku taagnaan waxay leeyihiin war waa ma inta saa ku filaydeen madashi oo kale iyo horta wuxuu sameeyay khiyaanad cudma uu sameeyay haday maanta jirto golayaal iyo shacbina day uma suurta gasheen waa ninka aan markii loo yeeray oran maxay igu yeerisan waa ninka markii uu soo noqday ummadda uu waramin wax ku wada hadleen waa ninka markii imaka uu yimid Axmed Shidaan wax ku wada hadleen cid la wadaagin laba jeer bay gaar isku arkeen subaxdii iyo habeennimadii markuu soo dhamaystay buu afar wasiir u yeedhay ka wada cashayn bato markaas uu sheekay wixii laakiin nuxurka lagu sheekay kama hadlo uu ka tagay Muuse uu ka tagay madaxnimo iyo sharci uu ka tagay hadda waxaan u sheegaynaa hadduu sharci ka tago sharci uu ka tagay waxa uu ku dhaqaaqo annaguna sharci aan ku kala soconay madaxweyne noqon maayo madaxweyne Muuse Biixi buu noqonaya hadduu ilaa ucdiya fuudwan baabiinaya oo sharci aan waqtiga aan geenaya oo shaar baan tolanaya waxaan leeyahay madaxweyne ma tid hadduu bisha gudaheeda timeska la siiyay ilaa bisha 10keeda haddaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuur uu qaadanayaan ma jirto cashuur wuxuu moodayay abi bixi moodayay cashuur shacabka Soomaaliya bixiye karadan ka jaraya waxaan ka jarnaa lacagta qaadad ee khaayinka ku tahay waliba waa khaayin mal cudma way hayaan laga xushmoon maanta reeru dabada galiyaan ma jirto reerkoodu waa arkay Soomaaliya way aragtay adduunku waa arkay waa khaayin afkiisa uu ku islayn horaan u sheeg marka cirka soo dumiyo anaga afweynaha nagu noqdo doonay afweynaan rudnay waan ugu ridina hadda dalkan abuse kaysa waa ku ridina adoo qaawan wabdaxaysa allah ya billah wassalaamu alaykum